السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشانل كيني ماما شرف ويدله سو دوادا meel kasta dunida daafeedka ka joogtiin walaalahayga qaaliga ah channelku waa channel kiini ma sha Allah asxaabteeda qaaliga ah dambigeena dambi waalkeena Allah dhaafo walaalahayga qaaliga nin walba muraadku leeyahay Ilaahay u sahlo walaalahayga qaaliga ah waxaan idin hayaa maanta qiso cajiib badan qisadaas oo ku dhacday gabar ayadoo gabar u shaqeynaysa la joogtay muddo kadib safar inta aaday ayadii ay baxday baa waxaa dhacday walaalahayga qaaliga in gabadhii oo ninkii yani u shaqeynaysay in ayadii oo habeenada kamida u yimaado naagtii alla ka maqneeday ayuu meeshii ku xoogay gabadhii dib badan iyo dhaawac ay rafaad u geystay walaalahayga qaaliga ah mar alaale markuu sidaas u rafaadiyay gabadhii waxay ka imaaday ayada ebil markeedii horeeto waalidkeed iyo walaalaheed inta badan waxay ku noolaayeen miyiga magaalada meel ay yani qof kale u orado ama ay u tagto ma uusan u joogin waxaa dhacday ninkii markuu si xun u galay ayadii aad u dhibaatootay waxaan ku leeyahay meel u dhaqaaqda ma lahan gabadh naagtii la joogtani waa ay maqantoo safaray ku maqneed gabadhii waxay iska rafaado dhibaatooysa dhib badan soo marto waxaa dhacday ayadan inay uur yeelato gabadhii markay uur yeelato ciddina usii shaqeynayso ayadoo shaqada kusii jirto xanuun u dheeriyahay 4 saac matag way walacday aad bay u dhibaatootay walaalahayga qaaliga ah waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah ayadoo calooshii soo koosatay ay aragtay gabadhii kaleeto oo safarka ka imaaday ee aragtay markaas waxay tiri maxay tahay indhahaaga ma adaa umalaysid mise gabadhan uuray leedahay may indhahaaga waa mabal qabay uursay ku yeelanaya anaa miyiga ka keensaday ciddeeda anaa ka keensaday ninku ma aanan ogeyn ma intaa maqnaay nin guursatay way aamustay waa iska joogtay wax yar kadib haddana in badan maalmo kadib haddana caloosh waa tanaa banaanka ayadoo yaaban oo isla maxay tahay balaayadan xagee ka imaaday gabadha ama nin intaad maqleen miyaa nin guursatay talow ay intuu usoo dhawaatay waxay tiri walaashay maxaa dhacay ma indhahayga mase waa run waan u jeedaaba oo urad leedahay markaasay waxay tiri talow ma u sheegtaa mase waa iska dhaaftaa markaasay tiri maya waxba hayga qarinin oo anigaa kaa soo wata reerihiini oo hooyadaa oo kaleeto ayaan ahay iigu sheego hooyadaa sirta aad u sheega laheed oo kaleeto iigu sheeg waxbaan kaala qabanayaaye markaasi xoogaa yar soo yara dabacdi gabadhii markaasi waxay tiri waxaa sidan ii galay oo uurkan ii yeelay waa ninkaaga naagtii inta naxday ay nooc kale noqotay ee waxay isku baragaraamisay naagtii ninkan gabadhan inuu guursado markay baxday oo qabo maseer iyo hinaaso hor lahayo gashaba iyo waxay isku dayday gabadha inay disho ayadoo fadhiday inta korkeeda maaday bahal budu soo qaadatay ayadoo madax kaga bilaab rabtay waxay tiri intaysa kugu dhufan istaagtay markay istaagtay tiri ayadoo inuu yadda ku dhufato rabto ninkii markuu yimid la kala joogay shibay tiri markay shib tiri imidaan way baxday guriga laheyd hore markay u baxday tii kaleeto meesha joogtay ninkiina meesha joogay waxay tiri sidaanaad ii gashay adiga calooshaana waxaa ilmaha calooshaan ku jirana waa adaa igu beeray waa ilmahaagii si sharci daraana iigu beertay tala faraha way ka baxday naagtaadana waa u sheegay warkii ma allaha lamaya anaa maxaad iigu sheegtay anaa ku habeelahay anaa meel ku geylahay anaa saan ku yeelilahay may maraad dhagartay mar labaad ima dhagraysidii tiri walaal ma fahantay waana u sheegay walaal kula ayadoo sida iskugu dhagan ninkii maqnaashiisa inta dareentay ayay dib usoo baxday gabadhii reerka laheed oo ninka qabay markay dib usoo baxday waxay aragtay labadoodii usoo isugu taagan ase waxay la noqotay inay isku dhagan yihiin la noqotay ilaa maseerku aad buu u dhib badan yahay bis waxaa dhacday in markii dambeeto maseer kadib gabadhii maseertay oo guriga laheed umaleysaba in yani ninkaa naagti uu guursaday umaleysaa waa hinaastayba walaalahayga qaaliga ah laba barida kale war la-aa la yidhi waxaa markii dambeetay tiri haye wallaahi inaa naagtan jaariyadda ah iyo aniga aadan isla keen qabaynin waryaa hadal
markaasuu yiri cuud bilayso naheed ma waanta naaniga ma qabo naagta naaniga saan ma ana markaasuu war diiday warkad markay diiday dhageyso diiday marka dambe labadooda ka bilaabatay dagaal meeshuu naagta ku dilay ku dharbaaxshay garaacay waa la isku soo baxay oo hooyadiis iyo aabihiis oo guri dhinac ka degnaa soo baxay mase hadday soo baxeen gabadhiyo meesha ayadoo waxba adeegto iska aheed oo baadiina laga keenay dhar fiican haysan dharkina ayadaa inta soo booday ku haaday ka jeexjeexday ayadoo meesha caloosheedii banaanka taalo walaalahayga qaaliga ayaa soo baxday abartii awoowaha iyo ayeeyihii oo guriga ku noolaayeen war maxay tahay dagaalka maya gabadhaan oo ila qabaa ma joogaayi ma yeelaayi warcuudu bilaahi bismillahi rahmaan gabadhi kaleeta gadaal loo gabadhi kaleeta la waraysto waxay leedahay ninkaan mis qabtiin waxay tiri ninkaan markay naagtiisa safarka aado ayuu ugu farxumeeyay farxumeynta kadibna uurkan ayaa yeeshay cidii og ma lahan waa aan dhibtooday dhibaato dhaawac ayuu ii geystay ninkaan si xun ayuuna ila dhaqmay ayada waxay moodaa inuu aniga asaga i guursado i qabo ima guursan imana qabo aniga si sharci darrada igu xadgudbay aabihii iyo hooyadiisaa tihiin hadda wixii aad ka dhihi laheedeen idinkay idii taalaa gabadhii markaasaa meeshii odagii yaabay afka gacanta saarta ninku waa nin weyn 9 ciyaar u joogto gabar yar u shaqaynaysa buu sidaas u galay meeshii yaa leelahay waxaa la yidhi anaga waaba ceeboobna habartii odagiyo arrintaan anaga yaan dhaafin gabadhaaniita hadda ha dhasho iska umusho markii umusho kadibna u tashanaynaa tii kale loo tagaa layidhi ninkaaga ayadaaba gabadhaas dhibkaas u geystay ma uusan guursan cudubileyso gabadha miskiinta ninkaaga dhibaateeyay adigana ha dhibaateyn markaas bay inta yar degtay naxday waxay tiri gabadha inuu qabo umaleynayo maba qabin miya ma qabo saas u gal intaa maqneed ayaanta safarka aad oo maqneed ayuu sidaas u galo ula dhaqmay gabadhii marka walaalahayga qaaliga waxyaalaha qaar waa dhibaato gabarna waa hilib geed saaran marka gabadhii naf inta lasoo wado reerkeedii laga soo wato shaqo ahaan loo soo diray meel ay u carabta lahayn soo dhibaato ma aha إلهي ربي الرحمن ودباتنا نقبح أو إله ربي الرحمن ونحي شر ولا شكته ذكوعد أو إله ربي الرحمن نمنك إيمانك لا إله ربي الرحمن إيمانك جلي أو إلهي ربي الرحمن وحيالها قارو شيطانك أمي عنا إله ربي نقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا عليك قالي وحيال آدي الله رحمه والله بالله أني أنت آدي أدي رحمه ولا عليك قالي أيام تنضمنا وحيالها صار صوب التيمبو مرك إلهي وحن كبرينا إن وناق إلهي نوافجي أو إلهي الشكت إشادان كنا قبض ولا عليك قالي مرك هدتكو عصبتا جنال كي سبسكرايب ده إيشير قراي لاقنا إيساق ولا عليك قالي لاق يقولون هذا ولا عليك قالي إيشير قراي كومنتني كبيحي جنال كوا جنكيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته